munaasabadatan maanta 26 Juun caawo kale in laga taagay dhulka Soomaaliyeed meeshii qaybtii ugu horeysay waqooyi galbeed oo maanta loo garanayo Somaliland calankii Soomaaliyeed meeshii ugu horeysay oo laga taago kadib markii ay xornimada ka heleen gumeystihii dawladda Ingiriiska maanta kale runtii taariikhda ay leedahay halkaan kuma soo koobi karno waa taariikh aad iyo aad dhaxalgal u ah shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan runtii halkaas dheer iyo midowgaas waxaan filayaa in maanta dad walaalaha iyaga ay hoogaa ay maaragtay aysan u arkin inay ku habboon tahay in la midoobo laakiin waxaan doonaynaa walaalaha iyagana inaan u nasteexayno ay nala qaataan midnimada wanaagga iyo sharafta runtii waxaan filayaa sida maanta galmudug ay isugu heelan tahay ay isku fikrad u yihiin isku maskax u yihiin in wixii kaloo annaga naga dhimanna inaan intaan dhammaystiranno inta naga maqanna raadinno aan u soo wada jeesanno inaan noqonno dad hal far ah halkaasna aan ku samaysanno wax allaale wixii dowladnimada u baahan tahay ama agab ha noqdo ama wax kale ha noqoto farxaddaas oo caawa aan uga qayb qaadanayna aan ku qabanaynana caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamarood innagoo ah maamulka dowlad goboleedka galmudug iyadoo laga xusahayo Soomaaliya oo dhan qaybaheeda kala duwan aad iyo aad baan ugu hambaliyaynaynaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kan galmudug munaasabadan qaaliga